الله عليه وحي الطريق لو مرايي مدحتويدا وحلين وحنا مدحوينها له فرينت ودريان له مدحوينه iga aqbal madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu socdo sanadkii afraad kii shanaana madaxa la galay runtii waxaan ahaa dadkii la shaqeeyay hawlaha badan la qabtay madaxweynaha runtii codka siiyay markaan maray channels fara badan saan madaxweynaha la kulmo oo isurtay weeyday marka waxaan jeclaaday inaan gaarsiiyo fariin ka gedisan sidii fariimaha loo gaarsiin jiray markii channelskii madaxtooyada aan isku dayay inaan madaxweynahayga u tago ay taas waxa geeysiisay in aan maanta sidan yeelo oo in noqoto si kala gaar ah oo madaxweynaha aan u gaarsiinayo in la kulmo in aad madaxweynahaagii weydo oo madaxweynaha dhistay tacabka aad gelisay aad weydo la kulankiisa maxay kaaga dhigantaa adiga والله أنا قرنتي وحقيقة أنا شخصية ده وحق كقية بدن قرنك أنا وحق قبا إن مدحوينه أودي يأرنتي الله إجمالي إنه سيف عمله صباحي وما أنت مقع سومالان ملوين بكودعي تاون كوجان علنيه لكن وحق الله هذا الدرامية إن مدحوينه أباهي هي إن دتكي سموادين تا إنه الله كلمه وأوف السماية مالين قارة ودadku arko dad fara badan baa jira oo hawlo fara badan iyo talo fara badan iyo wax fara badan madaxweynaha gaarsiin kala doonayeen gaarsiyan laakiin gaarsiin kari waayay hadiiba madaxweynaha sheegtay qaranka Soomaaliland sumcadiisii uu meel fog gaarsiiyay la kulankiisa adigu maxaad ku kordhin lahayd aad la kulmi lahaydba wallahi waxaan maanay in mid kamid ku sheegay kumana wada sheegi karo mid kamid waxa kamid ah in loo baahan yahay in la asteeyo hal maalin oo madaxweynuhu muwaadiniinta la kulmo oo aan ahayn maalmaha gaarka ee dalka laga yaqaaneysay ciidaha iyo munaasabadaha kale aan ahayn haddii ay ku suuroboodo inaad madaxweynaha la kulanto codsigaagan oo aqbali waayo maxaa talaabo kala qaadaysaa maxay tahay waxaan anigu aad iyo aad ugu rajo weynahay maadaama xildhibaan naas caashan ahay xildhibaankii hore waxaan ku rajo weyn inuu aqbalayo ka haddii baad ku rajo weynta inuu ka aqbalayo maxaad talaabooyinkii horaad qaaday iyo meelihii horaad martay ugu adkaysan weydaad ugu soo qortay bar waxaan ku wuri channelskii aan maray oo dhan way ii suurtoo weydaan la kulmo wax Allah عليه wixii dariiq loo maraayay madaxtooyada wixliin saas awgeed aniga jeclaastay inaan sidan dadban u gaarsiiyo kulankayga markii hore aad dhisay madaxweyne Muuse Biixi oo kursiga madaxtinimada u ordayay xiriir inta laag baa idinkeeda ka dhaxeeya xiriir aad u wanaagsan marka xiriirkii wanaagsan waxa ku dambeeyay waxaan ku sheegay waxaan ku wari isaga ilaa hadda wax uqdadana uma qabo wax dhibaatana kama qabo laakiin de qaranka ayuu hawl weyn u hayaa waana marka asaas awgeed baa laga yaabaa inaanu wada qaban karin wax walba laakiin anigu waxaan dareemayaa inaan vacancy inaan meesha ka maqanahay marka waxaan doonayaa inaan wixii de xiriirkii muxuu ahaa inaan la kulmaan rabaa nin de siyaasiya xildhibaan ahaan jiray xildhibaanadii xisbiga maxaafadka ee kulmiye ahaa intaas oo talaabo waxa leedahay way suuragal weeyeen inaan madaxweynaha Muuse helo way suurtay weeyeen ugu dambeyn fariinta u dirtay madaxweyne Muuse Biixi Maxamed waxaan madaxweynaha fariinta u dirayaan madaxweyne iga aqbal bulshadu waxay aad iyo aad isu weydiinaysaa maadaama xildhibaan hore Naasir Cali Shire ay walaalayihiin mid kamid ah wasiirada ugu tunka weyn ee xukuumadda madaxweyne Biixi oo ah wasiirka maaliyadda Soomaaliland Saad Cali Shire miyuu awoodi kari waayay Saad laftiisu inuu maro oo xildhibaan hore oo Naasir uu la kulmiyo madaxweynaha mudana xildhibaan hore marka adigoo xildhibaan ahaa oo mas'uul hore ahaa oo qaranka iyo Soomaaliland ba sumcad hore ugu lahaa iminkana kule aad madaxweynaha la kulmi weydo sawir noocee ka aan sameeyay haddaan ku soo leexdo waxaa sababay channels fara badan oo madaxtooyada loo maray markii aan maray runtii aan isku dayay inaan madaxweynahayga aan doortay aan la kulmo ruuxantii way ii suurtay weyday waxaan oran karaa nimanka jooga xoghaymaha madaxweynaha niman telefoonka ka qabanaya maaha waa niman aan runtii aad moodaa shaqada loo igmaday mala aan garanay maas leeyahay saaxiibo kale aan leeyahayna waan isku dayay inaan ka wareego channels kale aan garanayana waxaan isku dayay inaan ka wareego dhammaan albaabadaasi way iga soo xidhmeen markaa waxa ay kalifay inaan markaa ka fekeray bas si kale oo ka duwan sidii hore channelska oo madaxweynaha fariintiina u gaarsiin karayo dabeedna waxaan go'aansaday tii aan saaka
aan sameeyey waxaana filayaa iminka feedbacka iga soo baxaya meelo fara badan iyo ilaa xataa ilaa gobolada wararka iga soo gaaraya waxaan filaya hadduu meelahaaba gaaray warkaygii in madaxweynahaanu gaaray jawaab runtii very positivena ama wanaagsan ah ogolaanshan oo ka sugaya haddii aad adigu awoodi weyday inaad madaxweynaha la kulanto oo awooddaada ay noqon weyday miyaad weyday maadaamaad xildhibaan 17 sano ka ahayd somalilan in ku dhow cid kuu geysa miyaad weyday waxaan ku ori waxyaabaha hadda aan ka fikiraya waxaa ka mid ah madaxweynuhu waa madaxweyne qaranka ummaddiisa ama ummaddiisa waa reer somaliland ee dooratay iyo kuwa aan dooranba wax xaq u leeyihiin inay madaxweynahooda arkaan yaanu qabaa kumana filna maalmaha munaasabadaha la sameeyo oo keliya ee maalinta ciidda ah iyo maalmaha kale ee qaranka ah intaana waxaad yimaada dad awood iyo magac iyo sumcad leh laakiin muwaadiniinta caadiga ee madaxweynaha markaan waxaan soo jeedinayaa madaxweyne muwaadiniintaada u samee maalin ay kula kulmaan ay ku arkaan mudane xildhibaan hore marka adigoo xildhibaan ahaa oo mas-uul hore ahaa oo qaranka iyo somalilanba sumcad hore ugu lahaa iminkana kuleh aad madaxweynaha la kulmi weydo sawir noocee bay muujinaysaa marka dhinac laga eego waxay muujinaysaa sawir aan fiicnayn laakiinse dee madaxweynaha duruuftiisa gaarkaa ma ogin iyo siduu ugu talagalay hawsha waxaaba laga yaaba arrinku inaan isaga ahaynba inay meel ka sokaysa inay tahay waa dee mala awaalku ma fiicna mana wanaagsana laakiin wuxuu baan rabaa ujeeddada waxa weeye in fariinta aan madaxweynaha saaka gaarsiiyey waxaan ka rajaynayaa inuu iiga jawaabo bulshadu waxay aad iyo aad isu weydiinaysaa maadaama xildhibaan hore naasir cali shire ay walaala yihiin mid ka mid a wasiirada ugu tunka weyn xukuumadda madaxweyne biixi oo ah wasiirka maaliyadda somalilan sacad cali shire miyuu awoodi kari waayey sacad laftiisu inuu maro oo xildhibaan hore uu naasir la kulmiyo madaxweynaha wallaahi waxaan ku soo koobay dhammaan channelskii aan ugu talagalay inaan u maro dhan waan u maray dabeedna maadaama channelskii aan ugu talagalay ee caadiga ahayd kuwa aad tilmaantay kuwa aan tilmaaminba halkan waxaan ka caddaynayaa inaan quus ka gaaray dabeedna aan waxaa la yidhi nin faras dabadii ka degay meel u dhaanto waayey dabeedna halkaasaa noqotay inaan ka dego oo aan maanta la hor istaago inaan ka codsaya madaxweynaha inaan la kulmo haddiiba madaxweynaha aad la kulanto oo kulankaaga la fududeeyo ciddii doontaaba ha fududaysee fariinta aad u sheegi lahayd maxay noqon lahayd anigu waxaan dadka madaxweynaha aad la soo shaqeeyey in badan la shaqeynay horta waan ku hambalyaynaya madaxweynuhu muddadii imika 5 sano ku dhowaatay tallaabooyinka faraha badan oo qaaday ee dhaxalgalka ah waxaan u arkaa inay somalilan halkay shalay taagnayd inaan maanta aanay taagnayn oo meel ka fiican marayso guulahaasoo dhan xukuumadda maanta si ayaa loo aanaynaya waanay ku mahadsin shaqo fiicana waayaan waxaana ka codsanaynaa inay dadaalkaas sii wadaan si qarankana uu ictiraaf gaari lahaa oo caalamka uga mid noqon lahaa taasaa very important oo qof kasta runtii muxuu ahaa hagaajinaysa haddii aan waqtigu dheerayn waxaan ka sheekayn lahaa sheekaylo cajiiba waxa weeye nin xildhibaan oo loo jeeda cali aaraye oo golaha wada joogi jiray allahu naxariiso wadinte wuxuu ka soo jeeday gobolka salal ayaa maalin wuxuu iga sheekeeyey maxamed xaajilaan cigaal buu la fuulay isagoo wafdi la raacay waxaana diyaar u soo diray madaxweyne markaa ee jabuuti intay jidka sii socdeen oo madaxweynuhu caasimo rasmi kalay jabuuti madaxweyne jabuuti ayuu ku yidhi madaxweyne hablahan quruxda badan diyaaradda ka shaqaynaya waa uu habla ciisa madaxweyne cigaal intuu aamusay allah yarxamu ilaahu naxariisto intuu aamusay ayuu yidhi waa run waa sax laakiin hablihii kukuyada ahaa waa waddanka kenya qabiilka loo yaqaano kukiyada ee uu ka dhashay madaxweynihii horreeye kenya jomo kenyatta ninkii loo jiray wuxuu yidhi hablihii kukuyada kontonkii aan aqaanayba maanta way qurux badayeen laakiin sababta ma garanaysaa wili waxaa weeye wili cidda ilaashata qarannimadeeda ha ilaashataa ee haysataa saasaa hablahooda qurux badan wili hadalkaas ku yidhi markaan waxaan qabaa dhammaan aan kula talin lahaa cid walba inaan qarannimadeena iyo dowladnimadeena inaan ilaashano dee markaas waa wada qurux badan doonaa insha tacaala marka madaxweynuhu ku mahadsan yahay dad badan baa siyaabo kala duwan uga hadlay sawirka ee boodhka ah ee aad ku xaradhay adigoo in badanna xildhibaan ka ahaa somalilan dadka iyaga fariintaad u diraysaa maxay waxa weeye fariintaan u diraya waxa weeye anigu waxaan u arkaa in mar walba wax kasta oo dhaca aan laga eegin xagga negatifeka
ama sayrka qalooca ee laga eego sayrka toosan taasi waxa weeye qofka muwaadinkii hadduu xildhibaan hore ahaan jiray maanta waa muwaadin reer somaliland oo dadkiisa ka mid ah wax ku dooni maayo waxaasaan ahaan jiray waxaan ku doonaya wax kaliya inaan ahay muwaadin xaq u leh in wax weys arko aad iyo aad baad mahadsan tahay xildhibaan hore naasir cali shire waa kaga mahadnaqaynaa aniga iyo bahda telefishinka sahanba sida wanaagsan aad waraysiga noo siisay aad baad mahadsan